Taliban oo ka digtay duulaan kale oo lagu soo qaado Afghanistan. Taliban oo ku ammaantay ciidamadii caalamiga ah bixitaankoodii Afghanistan tallaabadii shalay kuna tilmaantay soo laabashadooda awoodda inay cashar weyn u tahay kuwa kale ee ku soo duula, iyaga oo ku booriyay Mareykanka iyo adduunka intiisa kale inay aqoonsadaan xukunka Taliban. Afhayeenka guud ee Taliban ayaa hadalkan sheegay saacado kadib markii diyaaradii ugu dambeysay ee militariga Mareykanka ay ka ambabaxday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimadda Kaabul. Mujaahid Marwar Fayeenka kula hadlay laamiga ay diyaaraduhu ka duulaan ayaa hambalyeeyay reer Afghanistan, wuxuuna ku dhawaaqay ka bixitaanka militariga shisheeye inay guul weyn u tahay dhammaantood ay wada leeyihiin. Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ayaa waxa ay duulaan dalalka koonfurta Aasiya ku dhawaad 20 sano ka hor, waxaana Taliban kala wareegeen Afghanistan kadib markii Taliban ay u ogolaatay shabakadda argagixisada Al-Qaacida ee abaabushay bishii Sebtembar 2001 weerarada Mareykanka inay joogaan Afghanistan. Mujaahid ayaa isku dayay in uu meesha ka saaro weerarka maruu garoonka diyaaradaha Kaabul kula hadlayay cutubka sida gaarka u tababaran Badri, wuxuuna kula dardaarmay inay si aan fudayd lahayn ula dhaqmaan dadka reer Afghanistan, si wanaagsan oo naxariis leh ula dhaqmaan dadka reer Afghanistan. Wuxuuna yiri Mujaahid arrintaas ku daray in ciidamada Taliban ay u adeegayaan yihiin shacabka Afghanistan, isla markaana aysan culays saari doonin dadweynaha. Afhayeenka Taliban ayaa dhinaca kalena sheegay inay doonayaan inay xiriir wanaagsan oo diblomaasiyadeed la yeeshaan Mareykanka iyo adduunka intiisa kale, iyaga oo sheegay in ay u baahan tahay kaalmo caalami ah. Isku soo wada xooriyo dowladda Afghanistan ayaa ku dhawaaqday inay u baahan yihiin kaalmo caalami ah oo ay kaga codsanayaan adduunka intiisa kale si looga baxo 40 sano ee dagaalka iyo qalaalisuhu ku socday dalkaasi. Raxmaan Digaale, Somali TV, Kaabul.